degmada Buurtile gobolka Nugaal ayaa sanadihii ugu dambeeyay waxay sameeyeen kobac dhaqaale oo aad u heersareeyay waxaana degmada ku soo badanayay ganacsiyo kala duwan. TV-ga SBC ayaa u kurgalay xaaladda ganacsiga ee ka jirta degmada Buurtile. Ganacsiyadan ku soo kordhayay degmada ayaa waxaa ka mid ahaa Fooqa Dheer ee Alxarameyn Hotel, Peace Hotel iyo hoteelo kale oo aad u badan. sidoo kale meelo gaar loo leeyahay isbitaallo casri ah ayaa lagu arkayaa gudaha degmada Buurtile. ugu horeyntii waxaa warbaahinta la hadlay qaar ka mid ah mulkiilayaasha ganacsiyada ku soo kordhiyay degmada Buurtile ee gobolka Nugaal. dhinaca kale horumarka hoteelada maaragtay supermarketyada dukaamada sideedan oo kale ay way ku soo badanayaan marka magaalada boqolkiiba boqol waxay sameynaysaa horumar aad u ballaaran. saacid nin ganacsada baa tahay oo degmada Buurtile ku sugan ganacsi weyn ku leh maxaa keenay waas leedahay ganacsigan ku soo siyaadeen waxa keenaya magaalada Buurtile waa degmo aad u ballaaran waliba gobol bay maaragtay way u dhigantaa waxa population-keeda iyo baaxadda degmooyin maaragtay tuulooyinka ay fadhiyaan aad u badan tahay marka horumarku wuxuu ka bilowdaa waxa keena population-ka iyo dadka baa horumarka keena magaalada Buurtile gobolada Puntland qayb ka mid ah bay ka dad badan tahay boqolkiiba boqol. aad baan u mahadcelinayaa dhammaan shaqaalaha iyo TV-ga SBC dhammaantood halkan aan joogno waa Almacruuf Shopping Center Buurtile runtii waxa weeye Almacruuf Shopping Center Buurtile waxay keentay adeeg aad iyo aad loogu baahnaa oo degmada Buurtile dadka ku nool iyo deegaanada ku xeeranba ay aad iyo aad uga faa'iideysteen haddana ay baahi u sii qabaan in loo soo kordhiyo adeegyo kale oo hadda aan kuga hawljarno insha Allah inaan keenno. haddaan ka warramo degmada Buurtile iyo waxyaabaha ku soo kordhay ayaamaha kan sanadihii dambe aad ayuu u badan yahay magaalada horumar badan baa ka socda oo dhinacyo badan taabanaya sida xagga isbitaalada kuwa bareefadka iyo kuwa caamkaaba xagga hoteelada ganacsiyada kale. dhanka kale gudoomiyaha qurbajoogta degmada Buurtile Xirsin Maxamed Aadan ayaa u mahadceliyay TV-ga SBC cod dheerna baaq u diray qurbajoogta u dhalatay degmada Buurtile ee gobolka Nugaal. أولاً waxaan mahadcelinayaa TV-ga SBC maamulkiisa dhammaan shaqaalaha Cali Cabdi Cawaale waxaan ugu mahadcelinayaa sidoo wada qaatay TV-gu doontii ku dhawaad $2 milyan oo ay saareen shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan reer Puntland ay lahaayeen marka xigta waxaan baaq u diray qurbajoogta waana hadda afkooda ku hadlay reer Buurtile oo wada ogsoonahay reer Buurtile inta ku nool Buurtile in leeg baa maqan inay ka qayb qaataan horumarka degmada ka socda. ugu dambeyntii gudoomiyaha degmada Buurtile Maxamed Maxamuud Axmed ayaa sheegay in ka maamul ahaan wax badan ay ka qabteen dhinacyada horumarinta degmada Buurtile. bulshada inay horumarka dawladda waa in tallaabo qaado marka aynu wadaha sameeyno oo biyagelin sameeynay oo leerar sameeyay dawladda doorkeeda iyo ganacsatada iskaashanaya marka ganacsatada waxay ku dhiiranayeen ganacsigooda inay horumariyaan goobo waaweyn oo ganacsi oo ama heer xaafadeed in la sameeyo marka runtii Buurtile maanta meel fiican maraysaa waxaan aad ugu mahadcelinayaa ganacsatada hantidooda gelinaya degmada Buurtile si ay u horumariyaan deegaankooda runtii ayaguna faa'iido way ka helayaan magaaladiina waxay noqonaysaa magaalo ballaaran oo adeegyadii degmo ama magaalo horumarday laga heli jiray. gudoomiye ugu dambeyntii dadka u dhashay degmada Buurtile qurbajoogta ah maxaa u baaqaysaa waxaan ku baaqayaa qurbajoogta iyo gudajoogta hantida haysta inay ka faa'iideystaan runtii Buurtile waa magaalo istiraatiiji ah waa magaalo amnigeedu maasha Allah ilaahay uu siiyay boqolkiiba boqol la isku halayn karo waa magaalo runtii cimilo wanaagsan oo aan ahayn xilli kuleyl oo laga qaxa iyo xilli qabow oo laga qaxa cimiladeeduna ay tahay mid dhalaanka iyo ubadka iyo kulli ku roon. degmada Buurtile ayaa waxay ka mid tahay degmooyinka ugu waaweyn degmooyinka Puntland waana magaalada ugu ammaanka badan. Mawlid Maxamed Kooshin warbaahinta SBC degmada Buurtile.